gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa maanta shaaciyay gudida qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May. Gudidani oo ka koobnay 17 qof ay kamid ahaayeen maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama iyo ururada bulshada ayaa Cabdiraxmaan Nuur Sugaal gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal oo taxaya magacyada gudidani ayaa sheegay waxaan magacaabaynaa gudidii qabanqaabada 18 May. gudida waxa gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Xaaji Nuur Sugaal oo gudoomiye ku-xigeen, maayirka degmada Salmaan Xasan Xadi waa xogeeyaha gobolka Mustafa Axmed Cabdi waa xubin, حسن يوسف يراش حوية دولته وحمن، جيك عثمان عيق يسكدوها وحبرشدا وحمن، محمد عمر يابي يسكدوها عافنات وحمن، فدوس سعيد حسن نوري يسكدوها سقدا يا رمال بشر وحمن، نعم محمد آدم يسكدوها بيرة وحمن، أبو بكر حسن عافي يسكدوها ورفافنته وحمن، سفيه وفاني برخلي أورو الخناو وحمن، رضوي محمد عيق أورو الخناو وحمن، عبد عثمان بيقوين حلمان وحمن، سعيد موسى حوش وحلمان وحمن، حق انجويرا وأورك السيس أورك أيورا يورك السوستا. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal oo hadalkiisa sii wata ayaa baaqo diray gudidani uu shaaciyay isla markaasina ugu baaqay in maalinta berri ay kulan ku qaadan doonaan xarunta gobolka Awdal. berrito 10ka waxaan gudidaa wargelina in bari 10ka la isku yimaado xafiiska gobolka. intaas kadib waxa isaguna hadalka qaatay duqa degmada Boorama Salmaan Xasan Xadi isagoona ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaaladani Boorama in ay maalinta xuska 18 May ay tahay maalin la weyneeyo isla markaasina loo baahan yahay in goob ganacsi oo kasta lagu xiro calanka astaanta oo ah qarankani Soomaaliland. bulshada reer Boorama waxa leenahay sidaad awal uga qayb qaadan jirteen kaalintii aad ku lahaydeen in la sameeyo haduu la yiraahdo guri kasta waxa la doonayaa hortiisa inuu qurxiyo taasi iyadu waa qayb bay ka noqonaysaa meheradaha lafsigo inuu qurxiyaan baa loo baahan oo ma aha waa inaynu nidaamka iyo systemka iyo dawladnimada waa inaynu muujino marka waxa xaqi nadaafada laga qayb qaadanayaa haduu la yiraahdo khayradii hadda waanu hagaajinayno dib baa loo korino waa la dhisayaa. waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.